subax wanaagsan saaxiibada galwareed warbixinteena saakay oo khamiis ah waxaan ku eegaynaa mushaar kordhinta loo sameyn lahaa sanadkan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed oo baaqatay nasiib darro dalka ku habsatay siyaasiyiin ishor istaagay rajadii dhaqaale ay ku heli lahaayeen difaacayaasha qaranka iyo xogta sababta keentay in mushaarka loo kordhin waayo cidda ka dambaysa oo diiday ayaan markaa faahfaahinaynaa balse marka hore sheer gareeya muuqaalka idinka oo like saaraya oo waliba saaxiibadiina la wadaaga ogeysiis معهد barashada quraanka kariimka iyo maadooyinka kale ee diiniga ah ee al ihsan quraan online fursad dahabi ah ayuu hayaa waalidiinta iyo sidoo kale ubadka la doonayo in iyagoo gurigooda jooga quraanka la baro haddaba si aad fursaddan uga faa'iideysataan kala xiriira nambarada shaashada idinkaga muuqda waa hagaag aan ku horeyno saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo la hadlay garwareed waxa ay u sheegeen in sanadkan bilowday ee 2022 ay ciidamada qaranka Soomaaliyeed ay sugayeen rajadii ugu weyneed ay ku aadan mushaar kordhinta oo ay ahayd mid ay aad u haminayeen laakiin rajadaasi waxa ay noqotay mid ceel ku dhacday sabab la xiriirta siyaasiyiin iyagu markaa ishor istaagay in ciidamadaasi ay noqdaan kuwa qalbigooda markaa uu farxo isla markaana dhaqaalaha uu kordho madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu qorsheynayay sanadka cusub iyo waliba soo laabashadiisa doorashada in ciidamada qalabka sida loo kordhiyo mushaarka isla markaana la tayeeyo waxa ishor istaagay sida la rumaysan yahay damaca markaa ciidanka ee la doonayay in mushaarka loo kordhiyo siyaasiyiin xilal doon ah oo iyagu markaasi qaran dumis ah shisheeye kalkaal ah oo waliba calooshood u shaqaystayaal ah kuwa oo markaa iyagu inta ay qeeliyeen ishor istaagay in markaa doorashadii la qaban lahaa iyo waliba in ciidamadii Soomaaliyeed ee dhaxanta rafaadka silaca u marayay dalkan Soomaaliyeed in rajadoodii la burburiyo sababaha ugu weyn ee siyaasiyiintaasi ay damacsan yihiin waxa inta badan markaa iyadu sabab u ah in ay doonayaan in dalkan uu noqdo dal aanan hormarin isla markaana dal markaa isagu aan la tartami karin dhammaan dalalka caalamka ee iyagu ka hormaray dhinac walba gaar ahaan ciidamada marka la eego wadan walba waxa ay siiyaan priority ama mudnaan gaar ah si markaasi wadanka uu u noqdo wadan markaa ka hortagi kara qatar walba oo iyadu markaasi ku timaada laakiinse rajadii ciidamada weli waxa ay rajeynayaan in markaa ay dib u soo laabato Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa lagu amaanayaa inta uu joogay xilka madaxtinimada ee dalka in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ahaayeen kuwa iyagu qalbigooda uu faraxsan yahay isla markaana mushaarkooda uu ahaa mid joogto ah waxana uu damacsanaa in uu laba jibaaro si markaasi ciidamadu ay u noqdaan kuwa niyadooda dhisan isla markaana noqon kara kuwa difaaci kara qarankooda waxana ay mudan yihiin ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed mudnaan gaar ah in la siiyo maadaama dhaxan iyo waliba rafaad gaajo silac ay markaasi mar walba u taagan yihiin furimaha dagaalka isla markaana ay yihiin kuwa cadawga hor istaagsan daawadayaasheena galwareed sheer gareeya muuqaalkan u hiiliya ciidamadiina qaranka oo gaarsiiya saaxiibadiina si ay u gaaraan asxaab badan waxaana idinkaga tagaynaa sida iyo amaana Allah iyo waliba Soomaaliya oo guul iyo horumar markaa gaarta